wad salaamantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena 1 by 1 oo aanu soo qaadan doono wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyay. Waxaan wadeegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta, kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doono iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Aynu ku bilownay kooxda Manchester United ayaa beenisay wararka ah inay diyaar u tahay kooxdu haddii aanu ciyaartoygeeda Ronaldo bedelin habdhaqankiisa inay kooxda Premier noqoto heshiiska ay kula jirto ciyaartoyga. Ciyaartoyga Ronaldo ayaa la arkay kadib markii uu ku soo laabtay kooxda Manchester United in ciyaartoygu marka uu joogo xerada tababarka uu u dhaqmo si ka duwan ciyaartoyda kale oo marka ciyaartoydu cunteynayaan oo kale inuu kaligii isagu meel fadhiisto oo kaligii cunteeyo sidoo kale uu ka dhagaadeega afkaar kamid ah kuwa uu ku dabaqay Ten Hag marka lagu jiro tababarka kooxda. Haddaba kooxda Manchester United ayaa beenisay inay arrinkaas waxba ka jirin oo ciyaartoyga Ronaldo uu wali sii joogi doono kooxda Manchester United oo aanay kooxdu diyaar u ahayn inay iibiso ciyaartoyga. Halka uu tababare Ten Hag kooxda Manchester United kadib kulankii Brentford uu sheegay ciyaartoydu inaanay ku dabaqin ama aanay sameyn afkaartii iyo hawlihii kale ee kooxda. Oo tababare Ten Hag ayaa kulankii kadib waxa uu sheegay ciyaartoydu inaanay wixii uu ku soo bandhigay tababarka kooxda inaanay ciyaartoydu ku dabaqin oo aanay ku sameyn garoonka kulankii 4-2 laga badiyay ee Brentford oo ciyaartoy walbaaba uu sidiisa u ciyaarayay. Sidoo kale Ten Hag ayaa u sheegay maamulka kooxdu inay dhowr ciyaartoy la soo wareegaan ka hor intaanu xidhmin suuqa kala iibsigu. oo tababare Ten Hag ayaa markii ugu dambeeyay ama toddobaadkii ugu dambeeyay waxa la siiyay miisaaniyad 150 milyan oo pound taas oo loogu talagalay inuu ku galo suuqa kala iibsiga. Sidoo kale kooxda Everton ayaa diiday dalab ay kooxda Chelsea ka soo gudbisay ciyaartoygeeda Gordon, dalabkaas oo ahaa 40 milyan oo pound. Kooxda Everton ayaa la sheegay inay dalab ka diiday kooxda Chelsea kaas oo ku dhawaa 42 milyan oo pound oo ciyaartoygan ay ku rabtay kooxda Chelsea ciyaartoyga Gordon. Haddaba waxaa jiray saacadihii ugu dambeeyay warar sheegaya inuu dhamaystirmayo heshiiskan oo ciyaartoygu uu hadda ku sugan yahay magaalada London. Dhinaca kale ciyaartoyga kooxda Barcelona ee Memphis Depay ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Juventus iyadoo ay kooxda Barcelona u ogolaan doonto ciyaartoygan inuu ku baxo hab free ah ama si bilaash ah. Waxaana la shaacin doonaa heshiiskan ama ay dhamaystiri doontaa kooxda Juventus heshiiskan maalinka Salaasada ah. Halka ciyaartoyga kooxda Bayern ee Jamal Musiala uu noqday ciyaartoyga ugu horeeyay ee taariikhda kooxda Bayern horyaalka Bundesliga u dhaliya 14 gool isagoo aan wali gaadhin 20 sano. Jamal Musiala kadib markii uu dhaliyay goolkiisa ugu dambeeyay kulankii ugu dambeeyay kooxda Bayern ee ciyaartoy horyaalka Bundesliga waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee kooxda Bayern 14 gool u dhaliya horyaalka Bundesliga isagoo aan wali gaadhin da'da 20 jirka. halka ciyaartoyga Harry Kane isaguna soo bareejiyay ciyaartoyga Aguero oo waxa uu soo gaaray goolasha uu ciyaartoyga Aguero ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Haddaba Aguero waxa uu ciyaaray horyaalka Ingiriiska 275 kulan oo waxa uu awooday inuu dhaliyo 184 gool. Halka uu Harry Kane ciyaaray 284 ciyaarood waxa uu isna dhaliyay Aguero intuu dhaliyay in leeg oo ah 184 kulan. haddaba Harry Kane ayaa ciyaartoyga Aguero waxa uu ka badan yahay 9 kulan oo balse waxa isku mid yihiin goolasha oo labada ciyaartoyba waxay dhaliyeen 184 gool. halka uu Harry Kane ka ciyaaray 284 ayuu Aguero ka ciyaaray 275 kulan. dhinaca kale kooxda Aston Villa ayaa sheegtay ciyaartoygeeda Diego Carlos oo dhaawac ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ay kooxdu ciyaarto inuu ciyaartoyga Diego Carlos garoomada ka maqnaan doono muddo ah 6 ilaa 9 bilood. oo ciyaartoygan ayaa kulankii ugu dambeeyay kooxda Aston Villa ciyaartay waxa ka soo gaaray dhaawac halis ah. bal markan ay eegno kooxda Manchester City ayaa u sheegtay wakiilka ciyaartoyga Bernardo Silva in habka kaliya ee ciyaartoyga Bernardo Silva kaga bixi karo kooxda Manchester City ay tahay inay kooxi ka soo gudbiso dalab aad u weyn. haddaba xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya wakiilka ciyaartoyga ee Jorge Mendes iyo kooxda Manchester City kama turjumayso inay kooxdu hoos u dhigi doonto qiimaha ciyaartoyga. City wada hadal lama furi doonto haddii aan ciyaartoygan laga soo gudbin dalab ah 100 milyan oo euro iyadoo la sheegay in kooxda Barcelona ay diyaar u tahay ama aan ciyaartoygan ka bixin doonin qiimo ka badan 60 milyan oo euro. oo kooxda Manchester City ayaa diyaar u ah in ciyaartoygeedan ku fasaxdo qiimo ah 100 milyan oo euro ama wixii ka badan oo aanay wada hadal la furi doonin kooxaha soo gudbinaya dalab ka hooseeya 100 milyan. halka la sheegay in kooxda Barcelona ayadoo aanay rabin inaanay ka bixin ciyaartoygan ama lacag kaga bixin 60 milyan ka badan oo 60 milyan haddii ku soo iibsan kareen ku iibsadaan iskuna dayaan inay 60 milyan wixii ka hooseeya kula soo wareegaan. halka la sheegay tababare Xavi inaanu doonin inuu sii joogo kooxda Barcelona ciyaartoyga Sergio Dest ciyaartoygan oo Xavi uu arko inaanu ahayn ciyaartoyga ku haboona ee ka ciyaari lahaa booska daafaca midig ee kooxda Barcelona. haddaba kooxda Barcelona ayaa isha ku haysa ciyaartoy badan waxa kamid ah ciyaartoyga daafaca midig uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Thomas Meunier. sidoo kale waxa kamid ah ciyaartoyga kooxda Villarreal ee Juan Foyth,
Diego Dalot oo Man United ah iyo ciyaartoy kale waxaana la sheegay in kooxda Barcelona hadda isha ku hayso ama ay ahmiyadda siinayso ciyaartoyga kooxda Villarreal ee Juan Foyth sida ay qoreen warbaahinta Catalonia waxa sii xumaaday xaaladda ciyaartoyga Braithwaite iyo kooxda Barcelona kadib markuu ciyaartoygan diiday inuu ka baxo kooxda oo ciyaartoygan ayaa kooxda Barcelona u sheegay inuu sii dhameysan doono heshiiska uu kooxda kula jiro oo dhamaanaya sanada 2024 haddii aanu helin ciyaartoygan dalab uga imaanaya kooxa waaweyn iyadoo ay jireen kooxa yaryar ama kooxa caadi oo ciyaartoyga soo dalbaday ayuu ciyaartoygu u arkaa kooxahaas inay yihiin kooxa yaryar oo haddii kooxaha ku laabto inuu gadaal u socdo balse ciyaartoygan ayaa raba inuu hore u socdo haddaba kooxda Barcelona ayaa ku fikiraysa inay burburiyaan heshiiska ciyaartoygan kula jiraan maalinka ugu dambaysa ee suuqa kala iibsiga si ay u adkaato ciyaartoygan inuu koox helo ama koox uu ku biiro inuu helo oo kooxda Barcelona ayaa ku fikiraysa inay ka baxdo heshiiska ay kula jirto ciyaartoygan maalinka ugu dambaysa suuqa kala iibsiga si ay ugu adkaato Braithwaite inuu ku biiro koox oo uu sii ciyaaro sidoo kale ciyaartoyga Asensio ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay hadda inuu ka baxo kooxda Real Madrid isagoo wakiilkiisa Jorge Mendes ka dalbaday inuu koox u soo raadiyo ciyaartoygan ayaa filaya inaanu xilli ciyaareedkan waqti badan ciyaari doonin waxaana cadeyn ugu filnaa kulankii shalay ee kooxda Real Madrid ay la ciyaartay kooxda Almeria xilligaas oo tababaray Ancelotti aanu ciyaartoyga Asensio ciyaarsiin iyadoo uu maqnaa ciyaartoyga Rodrigo oo marka hore ka ciyaara booska weerarka bidix ee kooxda Real Madrid haddana Ancelotti waxa uu doorbiday inuu ku bilaabo kulanka ciyaartoyga Valverde kadib qaybtii dambena waxa uu ka qayb galiyay ama ciyaartoyga Eden Hazard dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa rajeynaysa inay ka hesho iibka ciyaartoyga Aubameyang 30 milyan oo euro haddaba wad hadalka ay kooxdu kula jirto kooxda Chelsea ayaa wali sii socda iyadoo uu qayb ka noqon doono heshiiska Marcos Alonso oo kooxda Chelsea ayaa filaysa ama doonaysa in ciyaartoyga Marcos Alonso qayb ka dhigto heshiiska ay ku rabto Aubameyang oo ciyaartoygan ay si bilaash ah ugu wareejiso kooxda Barcelona kadibna ay kooxda Barcelona hoos u dhigto qiimaha ay ku dalbayso inay ku fasaxdo ciyaartoygooda Aubameyang qodobada kale ee barnaamijkana waxaa ka mid ah ciyaartoyga De Jong ayaa sugi doona ilaa dhamaadka suuqa kala iibsiga kooxda Chelsea ayaa iyadu diyaar u ah in ciyaartoygan ka soo gudbiso dalab ah 80 milyan oo euro haddaba caqabada hor taagan heshiiskan ayaa ah inuu ciyaartoygu doonayo inuu sii joogo kooxda Barcelona sidoo kale uu ciyaartoygu diiday inuu hoos u dhigo mushaharkiisa oo kooxda Barcelona ayaa ciyaartoygan u sheegtay haddii uu rabo inuu sii joogo kooxda in looga baahan yahay inuu hoos u dhigo mushaharkiisa xilli ay kooxda Barcelona rajeynayso inuu ciyaartoygan ku biiri doono kooxaha Chelsea ama Manchester United halka la sheegay inay kooxda Manchester United diyaar u tahay inay u soo bandhigto heshiis hal sano ah weeraryahanka Vardy ee kooxda Leicester City hadduu ciyaartoygan ogolaado inuu ku soo biiro kooxda dhinaca kale sida ay sheegeen warbaahinta Francisco waxa maanta dhacay kulan u dhaxeeyay Lucas Ocampos oo ah agaasimaha kooxda PSG iyo ciyaartoyda Neymar iyo Mbappe oo khilaaf u dhaxeeyay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay kulanka ugu dambeeyay kooxda PSG xilli uu ciyaartoyga Mbappe helay rikoodhii ugu horeeyay kadibna uu khasaariyay inta kadib kooxdu waxa ay heshay rikoodh labaad oo lagu galay ciyaartoyga Messi waxaana isticmaalay ciyaartoyga Neymar haddaba khilaafka u dhaxeeya ahaa sida ay sheegeen warbaahinta Francisco inay ka mid ahayd heshiiskii Mbappe oo saxay kooxda PSG xeerarkiisii inay kooxdu iibiso ciyaartoyga Neymar oo waxaynu arkaynay ka hor intaanay bilaabin horyaaladu inay kooxda PSG isku dayday inay ciyaartoyga Neymar iibiso waxaana lagala hadlay labada dhinac inuu habdhaqankoodaasi burburin doono ama uu burburin karo wadajirka kooxda Neymar ayaa sheegay inay iskaga khaldantay inuu yahay ciyaartoyga labaad ee laadan doono rikoodhaha ama ciyaartoyga labaad ee laadanaya rikoodhaha labaad ee hal kulan gudihiisa la helo haddaba labada dhinac ayaa si wadajir ah loola hadlay halkuu ciyaartoyga Sergio Ramos kadib kulankii uu la hadlay isaguna labada ciyaartoyba ugu dambeyntii kulamada ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono kooxda Atletico Madrid ayaa kulankoodii ugu horeeyay horyaalka La Liga waxay la ciyaari doontaa kooxda Getafe kooxda Juventus ayaa iyaduna kulankoodii ugu horeeyay horyaalka Talyaaniga ee Serie A waxay la ciyaari doontaa kooxda Sassuolo ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ayaa la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace kulankii labaad ee horyaalka Ingiriiska